بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسودو ودا معدك عالم تكنولوجي انستيتيوت waxaan soo wadnay barnaamijkeena computer accounting-ka waxaan soo wadnay casharkiisii lixaad baan soo dhiganay oo ka hadlayay casharkiisii xiisadii hore xiisadii lixaad aan soo dhiganay waxa ka hadlaysay equation-kaas in soo qaadanay accounting-ku isleega accounting-ku ku shaqeeyo ayaan soo aragnay waxaan insha Allah soo arki doonaa assumptions ashyaada waxaan ku soo sheegnay accounting-ku ku talaysay ama saddexda elementi accounting-ku uu ka kooban yahay assumptions liability and equity bal markaa mid kasta taariifkiisa iyo qeexitaankiisa ayaynu tagi doonaa insha Allah asante haddaynu nimaadno waa waxa la asante waxa loo yaqaano waa economic resource waa khayraad dhaqaale waa economic resource waa asantesku waa ninka raasamaal soo sheegnay waa khayraad dhaqaale tangible or intangible khayraadkaas oo la taaban karo ama qayb aan la taaban karin kamberigu wuxuu sameyn karaa khayraad dhaqaale oo haysan karaa mid la taaban karo iyo mid aan la taaban karin that the owned and controlled by an entity them taasoo ay shirkadu maamusho iyo iyadu ay leedahay ama ay maamusho shirkadu ay leedahay iyaduna ay maamusho ayaa loo yaqaanaa maxay assumptions and expected to have a probably future benefit taasoo laga rajeynayo in mustaqbalka ay faa'iido soo saarto oo assumptions kan waxa loo haystaa in ay faa'iido yeeshaan oo shayga hadaan faa'iido laga yeelanayn wuxuu tarayaa budget marka assumptions ujeedka laga leeyahay weeyaan in mustaqbalka ama shaygan maadaama shirkadu ay mustaqbal tahay mar kastaba oo markii la joogo dee mustaqbal uma sii tahay ama bil hal dhaho san hal dhahe waa wax iibsamayo dee soconayo shaqeynaya in alaabtaas iyo badeecadaas ay noqoto marka way including such as cash account receivable waxa kamid ah include waxa kamid ah ku leeyahay cash lacagta cadaanka bal yaqaan cash account receivable accounts kasta oo dhigan doona shaqo hadda account receivable waa isaga ayuu sii macnaheedu amounts owned to them by its customer account receivable waxa loo yaqaanaa waa lacagta ay shirkadu ku leedahay dadka macaamiisha account receivable waxa loo yaqaanaa meheradu customerskeeda lacagta ay ku leedahay loo yaqaanaa account receivable inkastoo ay noo soo socdaan insha Allah aan arki doono waxa kaloo kamid ah inventories badeecada loo yaqaan inventories laan baa kamid ah shirkadu ay leedahay dhulka building dhisme equipment qalab wuxuu ku sheegayaa waxyaabaha aan la taaban karin waxaa kamid ah patents goodwill copyright trademark and other legal rights waxyaabaha intangible-ka ee shirkadu ay leedahay aan la taaban karin asante hadana kamid ah waxaa kamid ah patents waxa loo yaqaanaa marka shirkadu innovation samayso ay wax ixtiraaqdo ay wax samayso dabadna wixii koota lagu xiro in iyadoo quraay alaabta iyo shay aga soo saarta loo yaqaan maxay patents waa patents baa loo yaqaan marka waa shay koota lagu xiray shay wadanka koota lagu xiray shirkad koota lagu xiray imika kale dana aad loo isticmaalayo tii kibriyada qaar baa koota lagu xiray imika kale fiber optic kamberiga keena koota mid lagu xiray marka patents waxa yaqaan shayga hadii koota lagu xiro intuu shaygu innovation sameeyo ama wax tiraaco ama wax sameeyo marka koota loo xiro ayaa loo yaqaan patents waxa kamid goodwill waxa weeye shirkadu haday intaanay imsato dhul istiraatiijiya oo lacag dheeraada laga qaado ayaa la yaqaan goodwill copyrights-ka kamid xuquuqaha koobiga kamid waa fiidiyoyada muuqaalada waxyaabahaas oo waxay leeyihiin copyrights oo deesaanahan shirkadu aad bay copyright-ka ugu sameeyeen iminka shirkadaha aad ku waaweyn copyright-ka aad baa loo ilaaliyaa waa xuquuq intangible oo kamid ah asset-ka marka copyright-ka waxay yeelan karaan fiidiyoyada muuqaalada waxyaabahaas oo ayaa yeelan kara marka trademark waa kamid ah astaamaha ama loogooyinka ganacsiga trademarkska waa loogooyinka ama ganacsatada loogadooda oo de company kasta logo leeyahay ee loogadiisa company-ga kale lama qaadan karo waa xuquuq isagu leeyahay and other legal right xuquuq kale fara badan baa jira oo aan intangible oo tangible marka aslantiis waxaan ku soo koobi karnaa khayraad dhaqaale oo noqon kara mid la taaban karo iyo mid aan la taaban karin waxyaabaha aynu sheegnayna waa u tusaale oo waa kamid waxaan kaloo doonaa isla faano shayga loo yaqaan liability waxa loo yaqaan deymaha loo yaqaan liability waa liability are a legal binding obligation that are payable to another person or entity waxa loo yaqaanaa waa xuquuq lagu leeyahay xuquuq shirkada lagu leeyahay ama qof ku leeyahay ama shirkad inuu leeyahay qof ay inuu yeelan karo ama shirkad ay inuu yeelan karo it's amount owner to creditors lacagta waxa la markaa owner ka ama hantiila ka creditors dadka deynta inuu leeyahay creditor la yaqaan deyn bixiyayaasha oo ay nolol soo sheegay deyn bixiyaasha kamid ah suppliers khalaad ka siibsano ama lenders ku loo yaqaan bangiyada ayaa loo yaqaan creditors settlement of the liability can be
complementary through the transfer of money, goods and service. lacagta wuxuu ku leeyahay hantida waxa lagu bixin karaa ama la iska bixin karaa lacag baa la iska bixin karaa alaab baa lagu bedelan karaa goods oo iminka kale hadii shirkadda ay customersku ay lacag inagu leeyihiin lacagta alaab baynu ku siin karnaa goods alaab baynu ku siin karnaa adeeg baynu qaban karnaa tusaale service adeeg baynu qaban karnaa tusaale adeeg oo kale waxa kamid oo kale diyaaradaha kale tigidhada diyaaradaha la goosto tigidhka diyaaradda marka goosato dee adeeg kaama qaban laakiin tigidhka 3 shir kadib aad raacaysa lacagtina way soo xaraystay shirkadda laakiin adeega waxay ku qabanaysaa service wax ku qabanaysaa markay goobtii ku geysay lagu qaaday goobtii lagu geeyo ayaa adeeg lagu fuli waxa lagu sameyn karaa maxay service oo marka lacagta 3 cisho shirkadda adigu ku leedahay oo hadii taan waxay dhacaan ama baaqdaan lacagtaadi waa lagu siin karaa siyaabo kala duwan loo sameeyaa inuu arki doono revenue goorma la aqoonsan insha Allah arki doono oo gaabkii waxaan ku soo dhigan goorma revenue la aqoonsan insha Allah 10 inoo socdo arki doonaa marka service marka dib shirkaddu ay ku dhaho 10 cisho kadib dad waa sii goosha tigidhada dad waa sii goosha bil ka hor sii goost marka bishaas oo dhan company-ga lacagta wad ku leedahay laakiin goorma uu ku filiideyntaadi wuxuu ku filinayaa markuu diyaaradii aad ku saaro ee meeshii uu geeyo ayuu adeegkii ku qabtay marka kana waxa la yaqaan maxay adeeg buu qofkaas ku qabanaya lacagta ku leedahay marka creditors wuxuu ku sheegayaa entities companies or people of a legal nature who have provided a good or service or lending money to the debitor. Creditors waxay noqon karaan buu ku leeyahay waa shirkado ay noqon karaan iyo companiyo labada waa shirkade ka hay'ado iyo companiyo way noqon karaan dad bay noqon karaan kuwaasoo la ku siiyay tusaale kale badeeca ku siiyay ama adeeg ku qabtay ama lacag ku deymiyay marka intaba way noqon karaan way kala suppliers ku waa kuwa ku siinaya good salaad supplier ka kala kan supplier ka goods ka soo qaadanaysa badeeco oo inventory badeeca ka soo qaadanaysa service buu qofku qaban karaa talaano kale adeeg buu qaban karaa saab tigidhada diyaaradaha sheegno lacag buu ku deemin karaa sida bangiyada iyo kale lending money buu ku siin karaa lacag buu ku deemin karaa inta markaa waa creditor buu ku noqonayaa qofkiyo deyn buu ku yeelanayaa marka kaasina waa liability waxa ugu dambeysay owners equity owners equity waxa kale loo yaqaan capital waa loo yaqaan waa isku mid wuxuu ku sheegayaa residual interest in the assets of the enterprise after reducing all liabilities wuxuu ku sheegayaa waa hambada ka soo hadha hantida marka laga jaro maxay liability ayaa loo yaqaan owners equity qaacidadii uu inoo sheegay maxay si scientific oo hore waxaynu soo aragnay owners equity waxa lagu helaa assets soo laga jaro liability marka owners equity waa soo boodaya haddaba wuxuu ku leeyahay waa haraaga soo hadha ama waa hambada soo hadha marka assets-ka laga jaro maxay liability marka laga jaro since wuxuu ku sheegay the claims of a creditor must be paid before ownership claim halka wuxuu ku sheegayaa creditorka owners equity-ga waxa la bixiyaa creditorsku waxay qaadanayaan ama creditorsku waxa la siinayaa lacagta inta aan ownership ku qaadan lacagta uga jeeda sida waxa looga jeedaa talaana kale company-ga marka koobaad owners equity waa haraag waa hambo wax soo haray shirkadda kale marka la xisaabiyo assets oo dhan guud ahaan la isku qaado marka dambe wax la soo saaray assets liability and owners equity marka assets maxaa lagu helayaa ee creditor-ka wata wixii ugu wixii masis assets-ka marka ayaad ka jaraysaa liability and owners equity marka helaysaa marka wuxuu ku sheegayaa creditor-ka la horsiinaya ownership-ka intaan sheegashadiisa iyo lahaanshihiisa laga hadlin deynta marka laga saaro ee deynta qofkii deynta la siiyo meher deynta laga siiyo waxa uu soo haray ee u baaqiyo isagu leeyahay marka owners equity is called residual value of equity waxa kale lagu yeeri karaa buu leeyahay residual value of equity waxa lagu yeeri karaa waa ninka equity-ga iska leh waxa soo haray ee residual-ka ee hambada soo hadha qiimaha soo hara marka laga saaro maxay deynta marka laga saaro ka shirkadda marka deynteedii la bixiyo ee deyntii la iska bixiyo waxa soo hara waxa iska leh owners equity la iska leh marka qaruntii si scientific ah ayuu inuu sheegay marka way ka tina owners equity waxa eegin doonaa owners equity soo si wadnaaye waxyaabaha qaarna waxay kordhiyaan owners equity kordhiyaan waxyaabaha qaarna owners equity yareeyaan wuxuu ku sheegay increase in owners equity waxyaabaha kordhiya owners equity waxa kamid ah halkan wuxuu ugu sheegayaa in proportionship owners investment afwan
halka wuxuu inagu sheegayaa maxay owners investment are revenue increase owners equity ownersku investment and revenue increase owners equity waxyaabaha kordhiya waxaa kamid ah halka inagu soo sheegay investmentiga haddii ownerku uu lacag dheeraada ku daro maalgelin dheeraada uu kusii daro entitygiisa ama companygiisa hadduu dakhli badan soo galana hantidiisa kordhisa marka hadda uu kala qaadayo intaas uu inoo sheegayo investment by the owner haddii hantilihii uu shirkadii maalgashi dheeraada ku daro kor buu kacayaa hantidiisa kor u kacaysa investment by the owner are the assets the owner put into the business. This investment increase owner's equity. They are recorded in the category called owner's capital. Markasta oo ownerku lacag dheeraada ku daro saan $1,000 ku daro meherada dushka ka daray oo mar dambe uu ku maalgeliyay meherada sii socoto marka hantidiisii baa kordhaysa marka capitalkiisii ayaa kordhaya marka ka labana waxay kordhiyaan maxay owner's equity kordhiyaan labana way yareeyaan marka doon labada yareeya marka investment by the owner way kordhisaa revenue haddii dakhli badan shirkadda soo galo taasina waxay kordhinaysaa hantidiisii shakhsiga ahayd bay kordhinaysaa marka hantidiisii capitalkii gaar ahaa ayay kordhinaysaa marka revenues wuxuu ku leeyahay are the gross increase in the owner's equity resulting from the business activity entered into for the purpose of earned income wuxuu inoo sheegayaa waa korkaca uu sameeyo owner's equity businesska dhaqdhaqaaqo businessku sameeyo ku xiran tahay marka businessku hantida uu shaqeeyo ayay ku xiran tahay marka earned uu kasbado alaabta aad loo iibiyo taasoo macaash ba ku jira macaashkaas revenue loo yaqaan macaashka $10 laga soo sheegto ma aso $5 wax laga iibsado toban kursi baa laga iibsado oo $5 saaran tahay waa $10 soo maragta marka runtii revenue waa hantida dur saaran qiimihii lafaha uu ku joogay marka markastoo shirkadu activities badan ay qabato oo shirkadu bigta activity qabato waa markastoo uu incomekeedu uu kor u kacayo marka incomekeedu uu kor u kacayo waxyaabaha yareeya waxaa kamid ah drawing ka xil yaqaano ama withdrawing baad maqlaysaa iyadoo leeyahay iyo expenses marka expenses waa qarashka withdrawal waxa loo yaqaanaa waa lacagta uu hantiiruhu sida gaarka ula baxo loo yaqaanaa withdrawal an owner may withdraw cash of other assets from personal use. We are separated a classification called withdrawal to determine the total withdrawal to each accounting period. Draw decrease owner's equity they are recorded in. halkan wuxuu sheegayaa ownerku wuxuu sameyn karaa withdraw lacagta loo bixi karaa withdraw waxa loo sameeyaa withdraw inku waa tan oo formka marka idinku kale bank lacag dhiganayso form deposit form ayad buuxisaa marka lacagta digaso waxa macluumaadka soo yaa ka number kaga xasuudan haddaad kala baxaysana form loo yaqaan withdraw ayad buuxisaa marka wuxuu ku sheegayaa maxay lacagta uu isticmaalay intuu hantiiruhu la baxay personal use waa duu lacagta la baxo expense waa aqoonsanayn laakiin withdraw waa hantiilihii baa dib lacagtiisa u noqon marka withdraw baa loo yaqaanaa marka way expense waxa loo yaqaano wuxuu ku sheegay arday cost of assets consumer or surface used in the process of earning revenue. They are decreases in owner's equity that resulting from operating the business. wuxuu ku sheegayaa expense waxa loo yaqaano waa lafaha ay ku taagantahay badeecad lafaha ay ku taagantahay waa expense waxaan sheegnay waxa jirta dakhli ka soo shirkadu heshay waxa jira kharash loo galay ayaa jira marka kharash loo galay waa business baa loo galay expense baa loo galay oo marka alaab saysiis wadan lacag u quuraya lacag bixinaya ka lacagtaad bixinaysa expense loo yaqaan ka alaab kasto meherada taala ama adeeg kasto meheradu qabanayso haduu adeeg yahayna adeeg qayb kamid ah soo la soo iibsada la soo gataa inko kala di meel mobile ay dhacdo meel mobile password laga jiyo waxaas laga qabto die box wala soo iibsanaya boqosada laga jiyo password inka Chumera boqos oo kale oo password Chumera box ugu caansan ee password laga jiyo computer ka wala soo iibsanaya marka waa si adeeg loo qabto ama si meheradu u shaqeyso waa lacagta loo quurayo marka iyo si revenue loo helo laftirkiina oo process of earned revenue si revenue loo helo dakhliina waa in expense la sameeyaa marka they are decrease in owner's equity marka soo kharash dhacana owner kantiisu way yaraanaysa sababtoo ah business kuna wuxuu sameeyaa maxay result from operating the business waxa gibigiisa operate garanaya business ka shaqaysiinaya waa expense oo kharashaadka la sameeyaa marka in badeecada la soo iibiyo
deedna hadhow la siibiyo marka la siibiyo faa'iido la saarayo faa'iido waa revenue laakiin lacagta marka lagu soo iibinayo waa expense marka expense waxaan filayaa isagan in isla faanay halkaas aan ku soo gabagabeynaya 10 7 ee barnaamijka xisaabaadka cookbookska. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi